marxaban saaxiibadeeyow dhammaanteen waxaan jecelnahay in aan ku noolaano nabad kana fogaano dhibaatooyin miyaysan saas ahayn waxaan u aragnaa in sidaas ay nafteena raaxo ku dareento balse waxaa jira ashqaas aan u aabayeelin mushkiladaha waxay sameeyaan wax walba oo karaankooda ah si ay ugu takhalusaan dhibaatooyinka haysta maanta waxaan ka hadli doonnaa qisada wiil u dhashay Mareykanka kana soo jeeda magaalada Buffalo oo lagu magacaabo Antonio ma ahayn mid ka qayb qaatay dibadbaxyadii ugu dambeeyay ee Mareykanka ka dhacay ee looga soo horjeeday dilkii ay ciidamada booliska Minneapolis u geysteen nin madow ahaa sababta uusan Antonio uga qayb qaadan dibadbaxyadaas rabshadaha watay waxay ahayd in uu xilligaas isku diyaarinayay imtixaanka la isugu diyaariyo jaamacadda laakiin waxa uu ahaa mid xaaladda dibadbaxyada kala socday TV-ga iyo internetka wuxuuna ahaa mid si fiican ula socday in xaaladda ay tahay mid fowdo iyo halis ah maalin maalmaha ka mid ah waxa uu shitay TV-ga si uu u arko in xaaladda Mareykanka ay noqotay mid halis ah waxa uu la yaabay wixii ay indhihiisa qabteen waxa uu arkay magaaladii uu ku noolaa oo burburtay baabuur gubatay goobo ganacsi la jabsaday la dhacay intaas kadib waxa uu yaqiinsaday in adeegyadii madaniga ay istaageen shaqaalihii nadaafadana ay soo wajahday dhibaato xooggan oo aysan qashinka magaalada ka aruurin karin intaas kadib Antonio waxa uu gartay in la soo gaaray kaalintiisii ayna waajib ku tahay in uu wax u qabto inta ay doonto hala ekaatay taasna ay ugu fiican tahay intii uu guriga iska joogi lahaa magaaladiisii ayaa u baahan sidaas darteed Antonio waa uu soo baxay waxa uu soo diyaarsaday bacihii lagu shubayay qashinka waxa uu soo dhaqaaqay dhanka bartanka magaalada waxa uu bilaabay in uu nadiifiyo wadooyinka waa uu la yaabay wixii uu indhihiisa ku arkay xaqiiqadu waxay noqotay in wixii uu TV-ga ka arkay ay ka sii daran tahay wixii uu dul yimid Antonio waxa uu bilaabay in uu qashinka xaaqo aruuriyo goob isugu geeyo kadibna inta baco ku guro dhigo laamiga dhinaciisa si ay halkaas ugu yimaadaan shaqaalaha nadaafadda kadibna u qaadaan Antonio waxa uu sidaas ahaa maalmo fara badan waxa uu soo toosi jiray subax hore aroortii ilaa laga gaaro 4 saac ee habeenimo waxa uu ka fariistay oo uu nastay markii uu arkay shaqaalihii nadaafadda oo shaqadooda dib ugu soo laabtay markii shaqaalaha nadaafadda ay u imaadeen waxay si la yaab leh u weydiiyeen kaligaa miyaad waxaan oo dhan samaysay waxa uu u jawaabay haa kaligay ayaan sameeyey qaar ka mid ah dhalinyarada magaalada Buffalo ayaa sawirro ka qaaday Antonio xilligii uu nadiifinayay wadooyinka magaalada waxayna ku faafiyeen baraha bulshada Antonio waxa uu dib ugu laabtay gurigiisa wariyaha caanka ah ee Matt Block kaasoo safxad qaas ah Antonio ugu faray Facebook waxaana uu soo dhigay sawirka gaari aad qaali u ah oo Antonio jeclaan lahaa in uu helo Antonio ayaa subaxii xigay soo toosay waxaana indhihiisa ay qabteen wariye Matt Block oo si kedis ah ugu keenay gaarigii uu ku riyoon jiray ma ahayn wax uu filanayay waxa uu helay gaarigii riyadiisa oo yaal gurigiisa hortiisa intaas kadib Matt ayaa furihii gaariga ku wareejiyay Antonio farxad darteed carabkiisa waa uu awoodi waayay in uu eray qura dhaho waxa uu garan waayay waxa uu ku jawaabo sababtoo ah weligiis ma rajaynayn in uu helo ama in uu heli doono gaarigan qaaliga ah inkastoo uu helay gaarigii riyadiisa haddana waa uu iibiyey si uu lacagta ka soo xaroota ugu daweeyo hooyadiis laakiin nasiib xumo hooyadiis waa ay geeriyootay haddii uu ku cajab geliyey muuqaalkan oo aadan ka mid ahayn asxaabta nagu xidhan nagu soo biir gambaleelkana furo sidoo kale like saar muuqaalkan siina sheer garay mahadsanid